الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. markale kusoo dhawaada cashirkeena labaad oo tixanaha noo ahay kaasoo ahay HTML ismaha website-ka oo ka bilaaban doono web designing. maantana waxaan ka hadli doonaa cashirkeena labaad uga hadlin doonaa laba waxyaabood kuwaas oo kala ah background-ka sideen ugu dhignaa ugu bedeli karnaa color-ka iyo new line sida sadar cusub loo sameeyo insha Allah. web designing-ki cashirkeena koowaad waxa ahaa structure koowaad ee qaab dhismeedka website-ka HTML-ka afarta tiir ee lagu dhiso website-ka. horey baan usoo sheegnay marka hadda kuma sii dheeraanayno cashirkeena baa hore usii wadneynaa. marka aan gareeyo ila arag marka inta aan gareeyo meeshaas waxaa ku yaalo page cadaan ah. color-kii hore ayaa saarnay oo color cusub hadda u yeelayaa. marka sidaas uma adko waa aad buu iskala sahlan yahay, easy waaye, very easy. enter dhesa space dhesa bg color badi dhexdiisa waa furaysaa bg color bg oo la soo gaayo background iyo color caadi qoraysaa. marka intaas aan qoray haddii xaraf uu ka maqan yahay marka ma suurtagelayso inuu meesha background-ka oo color-kii aragtay oo ku noqdo. marka tusaale hadda aad ku tuso art create waa aragtaa madow ayuu noqday, art ku dar hadda guduud ayuu noqday. waad arki doontaan equal ayaa dhehaysaa double quotation ama double quotes ka jeceshahay madow buluug cadaan red jaale inta ka jeceshahay ka dhigi kartaa. xitaa xarfi iyo number waa isticmaali kartaa. waana ku tusi doonaa waana ka qanci doonaa midaas. hadda magac ayaa ku qorayaa waxaan ka dhigayaa yellow iga qor double quotation waa ku furaysaa waana ku soo xiraysaa. kadibna control s ayaa taabanaysaa save ayaa dhehaysaa kadibna waad ran garaynaysaa refresh dheh waa ujeedaa page-kii jaalo ayuu noqday. marka adigoo isticmaali karo number waa isticmaali kartaa, xarfan waa isticmaali kartaa. marka number isticmaalaysid waxaa dhehaysaa lambarada 22 isku dhaca 222233. marka color-ka ay noqdaan ayaan arki doonaa garay kasa noocaas ayuu noqday. adigoo isticmaali kara xarfan waa isticmaali kartaa haddii aad u baahatid rr ss adhe sorry ss. marka control s dheh mar walba aad qorso save gareysaa ha iloobi inaad save gareysid insha Allah. waa haddana aragtaa cagaar ayuu noqday. marka intaba magac waa isticmaali kartaa, xarfan waa isticmaali kartaa, waxaa kaloo isticmaali kartaana numbers waa isticmaali kartaa. marka mid kalena aan ku daraayo shirkadda labaadna ugu hadli doono waxay tahay lesson-ka 2 sidee loo sameeyaa new line. hadda qoraal ayaa qoro waxaan bixinaa casharo caalami ah aad ku qanci doontid. marka intaas hadda control is dheh waa fiirinayaa new line ma ii tahay sadar cusub laba star ma ii kala tahay mas hal star waaye. soo fiiri waan kala iga xir u baahni kan ayaa u baahan hadda cagaarkan refresh dheh waa hal sar wixii dhama hal sar ay isku noqdeen. anigana maxaa rabaa laba sar in ay kala dhigto welcome our page iyo waxaan bixinaa casharo caalami ah aad ku qanci doontid. intaas waxa uu kala rabaa laba sar ayaa u kala rabaa. markaas waxaa dhehaysaa gadaal dambe marka uu dhamaado sadarka oo dhamaado dhamaadkiisa dambe waxaan ku qoraysaa br oo micnaheedu new line waaye. intana waxaa ka raacsinaa br kale ka raacsi ka control s waa save gareey rangaray browser-ka tagi. marka waa kaasaa intaas oo keliya weeyaan, sidaas uma dhib badno insha Allah tacaala. lesson 3 iyo isku soo noqon dambe macallin Bashiir iyo cashirkeena saddexaad insha Allah ee HTML-ka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.